caawa habeen aad iyo aad muhiim u ah oo weyn ayay u tahay dadka reer South Africa anigana waa ii tahay aan rabaa marka hore inaan idinkaga mahad celiyo soo dhaweynta iyo marxabeynta iyo hadalladii wanaagsanaa ee Soomaalinimada iyo danaha dadka reer South Africa ee Soomaalida ah iyo danaha Soomaaliya intaba loogaga hadlay halkan laga muujiyay maxaan ku raahay akhyaartii kala duwaneed ee ka hadashay aad iyo aad ayay waxay ii ahayday waxbarasho ii ahayday iyo inaan fahmo dadkeena halkan jooga iyo xaaladooda in badan waa la soconay dhibaatada halkan dadka ku qabsatay haddana waxaan la soconnaa dadka halkan degan ee South Africa ku nool qaybta ay ka qaataan nolosha dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa iyo soo kabashadiisa qaybta ay ku leeyihiin aad iyo aad ay haddana u muuqataay u ballaaran tahay dabcan wanaag kasta iyo wax kasta oo nolosha ah oo la gaarayahay qiimi loo bixiyo ayay leeyihiin taariikhiyanna ummadaha haajira ee meel kala tagaahoo dhani dhibaatada aad aragteen ee halkan ka dhacday iyo kuwo badan oo lamid ah ka dhaca inta la sii socdo meesha loo socday la tagay markii la tagaba laakiin haddana taariikhdu waxay tusaysaa muddo kadib dhibaatooyinkaas waa laga gudbaa waa dhammaadaan marka ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa horta in dhibaatadaas laga gudbo ma dhiirigelinaayey hal subax in South Africa laga soo wada dareersado oo dalka lagu soo wada noqdo ma dhiirigelinayno laakiin waxaan dhiirigelinaynaa dalkan inaad ku noolaataan si sharaf la aad ugu noolaataan oo maxaan ku yiraahday aad dad magac iyo maqaam ku leh mujtamaca aad nolosha dhaxdiisa aad noqotaan yaan aad iyo aad u dhiirigelinaynaa micnaha aad leedihiin iyo qiimaha aad leedihiin iyo doorka aad dalkan ku leedihiin waxaa jirta hal wax oo aasaas u ah oo ama aad kor ugu kici kartaan ama aad hoos inaad tiro badan tihiin muhiim ma ahan inaad kulligiin xoolo wada haysataan muhiim ma ahan laakiin waxa muhiimka waxay tahay sidaan inaad isku xiran tihiin oo aad iska warqabtaan isla joogtaan tan muhiimka taas waay taasaa macno badan idiin samaysa malaayiin dollar oo qof walba uu haysto oo meel gaar uu kula jiro oo maxaan ku radaa ganacsigiisa yarkaa meel ku haystaa macno weyn idiin keeni mayso laakiin waxa macno idiin keenaya adinkoon waxba yeedaan haysanine laakiin isla joogo isla jiro iska warqaba oo kii jiran iyo kii caawa maxaan ku yiraahdaa dhibaataysan iyo kii mushkilad ay haysa intaba u gurmanaya oo garab taagan marka aad tihiin markaasaad dadka kale macno u samaynaysaan markaasaa la idin haliilayaa oo maxaa wax la idin bidayaa laakiin dad kale yaacayo kala socdo marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay muuqaalka caawa halkan ka muuqdo oo aan leeyahay aan qiyaasayo in uu muuqaalkaasi uu mithaal u yahay guud ahaan South Africa Soomaalida degan oo inta caawa howlkan fadhida aad iyo aad uga badan marka arintaas waa idinku hambalyeynaya si haddaba marka ay taas u dhacdo dalkii muddo dheer laga soo maqnaa wada dheerna waa la soo maray sidii hadaatay ninkii dhalinyarada abwaanka halkan gabaga ugu cabiray duruufii la soo maray sida ay ahaayeen bad iyo berri intii ka dhaxlaba alxamdulillaah ilaahay dadka inta fadhiday inta kale waa ka soo badbaadiyay halkaana la yimid waxaan markaa inaan tala yar ka geysto sida ugu fiican ee aad halkan aad kula noolaan kartaan Soomaaliyana markaa idinku horta is anfacdaan oo aad wax istartaan markaas kadib aad Soomaaliyana wax tari kartaan oo anfici kartaan oo macno badan u sameyn kartaan Soomaaliya dhaqaale ahaanad macno u leedihiin siyaasad ahaanna macnaad u leedihiin siyaasad ahaanna waxaad macno u yeelanaysaan community isku xiran isku duuban iska warqaba marka aad tihiin markaasaa wax la idin soo doonanayaa oo rajaladi ka qabayaa dadka kale ay idinku soo xirmayaan marka koobaad inaad midnimadiina iyo wadajirkiina horta aad ilaalisaan aad iyo aad ay muhiim u tahay si midaas ay u dhacdo waxa barbar socda marka dalkan aan ku noolnahay dawladdiisa iyo shacbigiisaba ayaga lafsidooda qadarin weyn yay mudan yihiin lianna nolosha aad hadda ku nooshihiin iyo midda dalkii
aad sababteen in looga noolaado oo dhaqaalaha waxa laga yaabaa qofku dhaqaalaha yarka halka ka diray inaanu asaga micno weyn aanu ugu fadhiyin oo maxaan ku raada $100 iyo $200 oo maxaa reerkaaga u dirtay inaan aad laakiin marka la isu geeyo oo intaas oo milyan oo dollar ay Soomaaliya tagto waa nolosha Soomaaliya waxay ku salaysan tahay lacagta inta ka direysaan waa mid daawada lagu soo gado waa mid maxaan ku raadaay raashinka Soomaaliya la geeyay lagu soo gado waa mid qalabka dhismaha lagu keeno waa mid waxa Soomaaliya ka jiro dhan lagu keeno waay laana waayahan dabadhan anaga dibadda uma dhoofino muxuu ahaay badaacaad u badan oo hard currency aan ka helno hard currency waxaan ka helnaa waa boqolka dollar ee maxaan ku halkan iyo meelaha kala duwan adduunka laga diro marka aad iyo aad ayaad macnaha dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan iyo kulli Soomaaliya macna badan aad ugu fadhidaan waxa kaliya ee wada jirkiin uu soo kordhinayaa marka waxay tahay in siyaasad ahaan Soomaaliya aad macna badan u yeelataan siyaasad ahaan inaad macna badan u yeelataan oo dad influence leh oo dawladaha ay la jooga dalkan dawladiisa iyo siyaasadkiisa influence ku yeesho Soomaaliya wax u tari kara inaad noqotaan taas marka maxaa waxa ka marka horeba shuruucda iyo nidaamka dalkan ka jira inaad ixtiraamtaan dalkan aad degantihiin oo aad ku nooshihiin oo aad maxaan ku raadayay dhaqaale badan laga sameeyay oo dadka qaarkii ayagoo lugaynaya intay yimaadeen alxamdulillah maantana ayaguna ay nool yihiin qoysaska ay ka yimaadeen ay nooleynayaan waa dalkana abaalkaas iska leh marka in shuruucdiisa iyo nidaamkiisa iyo dadkan taqaaliidooda iyo qaab nololeedkooda iyo wuxuu in la ilaaliyo u baahan ayaga iska leh hadii aanay adiga qaab nololeedka qaarkiisa aanu ku anficinin inaad qaadatood ku daysato kuma khasbanid laakiin haddana inaad caayso ama farageliso ama wax ka sheegto waxa waaye waa aad iyo aad looga rooyahay mid kale deganaanshiyaha qofku inuu degan yahay waa dalkaagii ma joogtid dal aadan lahayn maxaa la dhihi jiray waa dareen ku joog marka inaad mar walba foojigan tahay waa lagu gardari karaa waxyaalo badan oo dan muxuu ahaay aadan aqbalayna lagu sameyn karaa dulqaad inaad leedahay ilaa marka ugu dambayso meesha ugu dambayso meel laga si dib looga si durkaan hadii lagu geeyo waa gooni laakiin dulqaad inaad leedahay wiil yaraa wax dafay xabada lagu riday mida beri asagoo maxaa wax la cararay jidka lagu arkay baabuur inta waxyaabaha oo runtii aan aad iyo aad in looga dulqaato mudan waay aad iyo aad in loo wixii xataa annaga markaan Soomaaliya joogno annaga dhaxdeena aan sameeynay inta kuma sameyn karno laana duruufaha dalkan iyo waxaan waa naga duwan yihiin waxba yaan mar ku sii fogaanin wax waa dardaarankii koobaad dalkan aad ku nooshihiin oo aad ku dhaqantiin oo aad ka shaqaysataan shuruucdiisa iyo nidaamkiisa wixiisa hal ilaaliyo dhibaatada dalka ka jirta ee dadka Soomaalida markuu haysataan yani dhibaatada dalka ka jirta hay horta de Soomaalida ila xad u gaar maaha dadka ajnabiga ah oo dhan dhibaatada way wada qabaan hal loo sii kala badnaado laana annagu waxa laga yaabaa inaan dadka ugu firfircoonahay inaan dadka ugu hanaqaad badannahay inaan dadka maxaa ugu dhiiranahay meel aan lagu dhiiranin oo la tagin inaan tagno waxyaabo badan laga yaabaa dhibka inuu annaga uu sabab noogu yahay haddii aan ka joogno aan saas la yeelinna waxyaabo badan oo maanta la haysto lama heli lahayn taxaddar badan iyo maxaan ku raad dadaal badan in la muujiyo oo la iskaashadahay waa fiican tahay laakiin haddana meelaha qaarkood oo in la taga aan laga maarmaynin waa la tagayaa hal arrin oo aad iyo aad ugu fiican oo looga maarmi lahaa in meelaha aad khatarta u la tago ama haddii la tagana lagu daaho waxaa ka mid ah in la iskaashadaa ka mid ah $1,000 haysto midkaad haysata haddaan ku darsano mid kale ku darsano waxaa laga yaabaa magaalooyinka waaweyn inaan business ka samaysan karno haddaan wax isku geysano sharikadaha waaweyn ee adduunyada aragteen oo dhan iyo dalkan joogahay waa yaryihiin inta shakhsi uu leeyahay waa yartahay dhammaan waxaa lagu leeyahay wax la isku biiriyo la isku geystay dadka Soomaalida intooda marka haddii aad isku geysataan wax weyn ay qaban karaan meelaha qaarkood oo khatarta badan oo shaqada loo tagayna in xogaa laga yaraan lahaa yaa aad iyo aad macquul ah marka iskaashiga iyo isku xirnaanta iyo wax isku darsashada ayaa ayadana aad iyo aad muhiim u tahay taasna waa dardaarmaya ayadana haddii aan la yiraahdo in wax la isku darsado la iskaashado la isu geysto nidaamka dalkan ka jira si sharci ah wax la isugu darsado oo maxaan ku raadayay la isu geysto waxa la haysto
أمان كاغنو وكوهاجيا مقعي مقامنا واتكويا لنا يسام مقعد وح موقضة جناع سموقضة مركز هايسو لكن كايوس كيرو مالكويا لمركز جوكتو ريسك جنو وكوبدني هاي هذه الكلام عن واحد كسبين يستلقى بين الكلام لكن مركز اللي يسكوب جيو وحو ويسوي بركوب الهاين وأنا بدن الهاين هدي الليلة مركز تاسنا أيضا إن ليس آمنه وحلا يسكود درسده وحي كوكتهاي وحيابها عاد معناها كويا لنا يسام هدي أن مركز دب ونقول Soomaaliya dadka meeshaan fadhiya dad aad u dhalinyar waay waxaan qiyaasaa aad loo muddo dheer dadka badankiisa muddo dheer Soomaaliya sooma mooga markaan wajiyaashaan iyo da'da iyo markaan fiiriyo dadka badankiisu muxuu ahaay muddo dheer Soomaaliya sooma moogeen inkastoo dad odayaal oo 30 sano iyo in la mid ka badan iyo 20 sano in ka badan soo mooga ay jiraan Soomaaliya dhibaatooyin aad iyo aad u badan 25 sano yaa laga joogaa dawladeennii dhexe ee Soomaaliya bariga ee burburtay alxamdulillah maanta Soomaaliya dagaaladii sokeeye waa ka dhamaadeen reer hebel zuuyaal u wato oo maxaa ku raad ku duulayo maanta Soomaaliya kama jiraan waa ilaahay mahadiis Soomaaliya amni darrada ay keentay fowdada oo isbaarooyinka jidadka yaallo oo guryaha habeenkii la isugu dhaco oo maxaa ku iraadaay aan wax la kala qaada karin magaalada aan wax lagu mari karin oo cidii caawa boos yar meel ku leed soo iibsatay caawa guriga loo soo dabagalayo taas lafsadeeda Soomaaliya way ka dhamaatay maanta ma jirto Soomaaliya maanta waxa ka jira niman la yiraahdo shabaab iyo dhibaatada ay keeneen ayaa ka jirta waxaan markaa meesha maadaama ay dhalinyaro u badan tahay nimanka la yiraahdo shabaab oo magaca idin la wato shabaab waa dhalinyaro magaca dhalinyarada la baxay yani fikirkaasi fikir oo anagu aan leenahay asalkiisi ma ahayn fikir meel kale nooga yimid oo ahaa fikir Soomaaliyeed ma ahan fikir dad badan oo caalamka dhagan shabaab waa hay'ad ama tanziim fikir ku salaysan waaye fikirkuna muxuu ahay citizenship iyo ma dhalashana male xuduudana male fikirku waxa waaye waa socdaa maadaama marka tanziim oo fikir ku salaysan uu yahay cid kasta oo wataa marka laakiin afrikaana ku jiro asiana ku jiro yuruba ku jiro dad walba ku wada jira shabaab maxay Soomaali u noqdeen waa marka mas'alada hadii intaas oo dad ay ka koobmaan waxay Soomaali u noqdeen Soomaaliya ay ka jiraan maxayna Soomaali ugu jiraan Soomaali waxay ugu jiraan laana Soomaali waxa ka jira dhul aad iyo aad u ballaaran oo cid ka taliso xukunta aanay jirin cid ka taliso xukunta aanay jirin ka jira meeshaas iska yimideen oo kumankooda dhigteen ku bulaaleen xariya tababar ka sameeyso muxuu ahaa warshado muxuu ahaa waxyaabaha qarxa lagu sameeyo ka sameeyso wixii meelaha jiro dhan u yeer meeshaas si tartiib ah oo aan dib lahayn ugu noolaw sababta ay shabaab Soomaali u noqotana waa sababtaas sababta Soomaali ugu jirto sababta Soomaali ugu jirtana waa sababtaas dawladda federaalka ee Soomaaliya marka waxay koow mas'uuliyad iska saartay dhulkaas inay baabi'iso dalka dhammaantiis in xukun dawladeed inuu ka jiro meel kasta oo buqac kasta Soomaaliya ku taala waa in maamul dawladeed uu ka jira mas'uuliyadda koobaad oo is saarnay markaan xafiiska nabadda taas ay hadde waad garanaysaa dadka xukunka iyo talada iyo waxa iyo muxuu ahay hanuunka Ilaahay iska lagu soo duuli kara laakiin wax hal subax dhalanaya ma aha yani dadaal dheer iyo maxaan ku raadaay rafaad badanay wada dheer loo soo maray welina waa sii qoyantahay dawladdu marka waxay soo yareynaysaa maalinba iyo maanta ka dambaysa iyo bilba bisha ka dambaysa dhulkaas cid ka talisa aanay jirin in la soo yareeyo cid ka taliso lagu xisaabtamo ciddaas sida dhulkaas uga talinaysa si fiican bay uga talinaysaa si xun ay uga talinaysaa waxa soo dhan waa adjectiveskaas oo dhan waa jiri karaan laakiin cid ka taliso oo lagu xisaabtamo inay jirtaa cid ka taliso oo lagu xisaabtamo oo nidaam ah oo qawaaniin qabanayso oo maxaan ku raadaay sharci qabanayo oo maxaan ku raadaay ka heebaysanaysa dawladnimada waa inay jirtaa marka dadkeennii maadaama muddo dheer xukunka u maqnaay maamulada sameyntoodina waa adkaatay
آمنادينا ولي لأنها كلا آمن بح بدنا الدلك كجرا مجتمعنا ما أنت شخص معنا غير أهان قبيل أهان وأكل آمن بحسنيه هاي دولتنا ولا آمن بحسنيه dhibaatada marka meesha ka jirtaa waa sidii kalsoonidaas loo abuuri lahaa oo dadku isugu kalsoonaan lahaayeen oo mustaqbalkooda inuu isku xiran yahay oo aanay kala guuleysan karin ama inay wada guuleystaan ama inay wada guuldareystaan ay tahay in lagu soo qanciyo waaye waxyaabaha maxaa dawladdu in ay tahay nidaam iyo hay'ado institutions dadka u dhaxeeya oo maslaxadda caamka ee dadkana ka shaqeeya inay tahay dadku inay wada aqbalaan oo kuwa xukunka iyo mas'uuliyadda dawladnimada hayana ay sidaas u dhaqmaan waxay u baahan tahay wada dheer inaan marno laakiin waan bilownay waxaan aad iyo aad u garanaynaa Soomaalida shalay meesha aan ka nimiday sanadihii dambe ee la soo dhaafay waan naqaanaa waan xusuusanaa waan joognaa maantaan joognaana waan ognahay shaqada noo taal oo la rabo in laga qabto بري أو مستقبل كإلهي هدي ويرادنا ماشى أسعننا وقرننا أسباب الدولة دو أي أتاجنتها واسد أحداث وحش على دعي دبك بدناي ويا أرجع من لا قاطع لقانا اللي حضن لون نقنن أسباب تكنت اللي بعتها الشارع دعي ما أنت مرك إن لقى شقاية بري إن نقطة بري شرعي كقرحون واي سد حذف وين أي دولة دو أي أتاجنت oo dib u dhiska dalka ah dib u dhiska dhinaca siyaasadda iyo amniga dib u dhiska dhinaca bulshada iyo dib u dhiska dhinaca dhaqaalaha saddexdaasi aad uma kala hari karaan mid kaligiis istaagnaan kara ma jiro mid walba midka kale ku xidhaya marka saddexdooda in la wada dhaqaajiyana duruufaha dawladnimada Soomaaliya ee maanta meesha maraysaa hawl aad iyo aad u culus oo aad iyo aad u dhib badan ay noqotay arrimaha siyaasadda iyo amniga waa la sii kala hormariyay amniga ugu sii darnaaday laana haddii aanu amni jirin wax kaloo jiri kara ma jira siyaasadda lagama hadli karo dhaqaale lagama hadli karo arrimo bulsho lagama hadli karo yacni wax laga hadli karo lama cibaadaysan karo xataa yacni in amni la helaahay xataa yacni amnigu adduunyo iyo aakhira labadaba لأن الدنيا واشقيسان هاد وفوفي لهاد وحي إلهي وأرساقات صوت كسبر لهاد آخرين وكنت تعبان لهاد وعبادة يسال لهاد عاوة صغد لحق انتاد كعداد مساجد كتكتاب محوها اسك عبادة يسال لهاد مقالة مقدشو انتي تكتي أما وايد بكتا مساجد بدنا جرتو ظهر كصلاة الظهر كمركل الدكانيو والضوين كيو حافظ مساجد كاسكوها ريسانا لقدو كذا برناك جدد كالو تاغينا كي كرتون دكتي كي عمامة ديسة دكتي عصرك مساجد كده حديثة لقدو كذا مغربك دور صف لبا صف